ugu horreyntii waxaan rabaa inaan ganacsatada Soomaaliyeed u caddeeyo in aanay jirin cid ay u xiran tahay ganacsiga jaadku. qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliyeed oo shuruudaha ganacsiga wasaaradda ganacsiga iyo dayuuradda shuruudaha ku xiran ee hay'adda duulista soo buuxiyana in ay u furan tahay si xor ah nadiif ah uu ku heli karo. dayuuradaha qaarkood dad badan oo waxaan arkay hay'adda duulista la soo xiriiray ku dhahaya dayuurad ayaan wataa waxaanan rabaa in aan jaad ka keeno diridhaba. horta dayuuraddu ma aha baabuur oo kale, waxay u baahan tahay badqabkeeda. waad xasuusataan haddii hal dayuuraday waddankaada gudihiisa ay ku dhacdo ama shil ay ku gasho waxay kuu gelaysaa diiwaanka caalamiga ah. amniga iyo safetyga waddankaada ayayna dhibic guduudan ku noqonaysaa. marka iyadoo taa laga jawaabayo adduunka oo dhanna ay caalami tahay, waxaa waddan kastaa uu sameeyey shuruudo ku xiran in ay dayuuraddu waddankaada ka howlgasho, kuwaas oo kale ah oo dhammaantood loo sameeyey badqabka dayuuradda. ka soo qaad dayuuraddu inay ku jirto caymis, in ay maaragtay dayactirkeedu dokumentigeedu inuu sidii la raba yahay, bayloodyada caafimaadkooda inuu caafimaad qabaan, taasoo mar dhexdaana adduunka lagu soo rogay. wax la leeyahay release to service, liis dheer oo shuruudo ah ayaa jira oo obereytarada dhan aan la wadaagnay oo maaragtay halkan ku qoran ayaa jira. qof kasta oo ganacsadaha oo raba dayuurad inuu la yimaadana kaas ayaan la wadaagnaa, gacanta ayaa laga saaraa. haddii uu soo buuxiyo wasaaradda ganacsigana kala yimaado inuu waddanka ka ganacsan karo, shuruud kale oo xanibaysa ma jirto. xitaa waxaan samaynay si aan ugu sahlno ganacsatada Soomaaliyeed inay fasaxa helaan, waxaan samaynay emailka hay-adda oo fasaxa aan ku bixinno ayaan u daabacnay, meel kastana ay ka heli karaan oo maaragtay ska@ska.gov.so ah. marka dowladda Soomaaliyeed waxaa principal u ah in ay promote garayso ama kor u qaado ganacsiga xorta ah. nin kasta qof kasta oo Soomaaliyeed oo dayuurad caafimaad qabta wata oo dayuuraddiisu aanay ahayn dayuurad bassengera oo cargo loo soo sameeyey. dayuuradaha laba qaybood ayaa loo sameeyey oo waxaa la yidhaha configurationka oo cabinka dayuuradda sida uu u samaysan yahay. dayuuradna waa dayuurad bassenger loo sameeyey oo soo qaadi karta rakaab. dayuuradna waa dayuurad suumankii leh, hool ah, wax kursiga ku xirnayn, loo design gareeyey in ay soo qaado cargo. dayuuraddu waa inay tahay dayuurad cargo soo qaadaysa. ma rabno inaan aragno, ceeb ayay ku tahay dowladda Soomaaliya, dhibic ayayna nagu noqonaysaa gaduud ah oo taariikhdeena gasha haddii aan isla soo saarno jawaano jaada iyo bassenger hal dayuurada inaan isla soo saarno. marka shuruudahaas degsan oo qof kasta si nadiifa loola wadaagayo, ganacsatada Soomaaliyeed weliba loo fududaynayo, khubaro ka caawisa ay hay-addu u maaragtay allocate garaysay, ayaan rabaa in aan ummadda Soomaaliyeed la wadaago. bataatanna meel ay ka soo gasho dowladda Soomaaliya siyaasaddeeda in shakhsiyaad ama dad qura market nooca loo xadido, not only jaadka laakiin market ba jira in shakhsiyaad loo xadido siyaasadda Soomaaliya totally ka mid maaha. dulqaadkeennuna zero ayuu ka yahay anoo magaca hay-adda duulista iyo dowladda Soomaaliya ku hadlaya. marka waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed ganacsatada rabta inay jaadka kala timaado diridhaba waddanka Ethiopia, jaadkiisa ayaa noo furan, waa loo siman yahay. tartan xalaal ah oo xor ah ayay dowladda Soomaaliya ka ogoshahay. sida aad la socotaan dowladda Ethiopia dayuuradaha qaada jaadka oo loo yaqaan general aviation loo yaqaan, oo aan ahayn dayuuradaha flag carrier ah oo dayuuradaha calanka dowladaha ku duulo, way ku yaryihiin dalka Ethiopia. dad ganacsataa oo noo yimid oo waxaa jira wata dayuurad waddan kale ka diiwaan gashan oo aan Ethiopia ka diiwaan gashanayn. marka dayuuraddaasoo kale waxay u baahan tahay horta iyadii in fasax looga helo dowladda Ethiopia inay ka dhex shaqayso, because waddan kale ka diiwaan gashan tahay, dowladda Ethiopiana kama diiwaan gashan. kadib ayaa dowladda Soomaaliya ayadoo hubinaysa in dayuuradda caafimaadkeeda sax yahay, dowladda Ethiopia inay ka shaqayso civil aviationkooda oo siiyey fasax
kadib aan annaga keena siinayna. marka intaas ayaan rabay inaan idila wadaago. ganacsigu waa xor, qof oo u xiran yahay ma jiro. hay-adda duulista ayaana ah hay-adda ugu dambaysa ee fasaxa dayuuradaha bixisa. iyadii anoo magaceeda maanta ku hadlaya waxaan idiin caddaynayaa muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo waxyaabahaas badqabka sharafta waddanka oo naga dhexaysa ku xiran soo buuxiya inuu si sahlan u heli karo fasaxa dayuurad inuu uga keensado Chad magaalada Dirdhaba ama waddanka Ethiopia oo ku keeno waddanka Soomaaliya. shacab ama ganacsatadana la soo xiriiray way jireen, email nagu la soo xiriiray, in person shakhsiyan u yimid xafiiska hay-adda duulista, dhammaantoodna waa la wadaagay shuruudahan. marka muhiimku wuxuu yahay shalay iyo daraad waxba kama bedeli karno, berrita ayaan ka tashan karnaa, waxna ka bedeli karnaa. ganacsato kasta oo Soomaaliyeed soo buuxiya badqabka dayuuradda iyo shuruudihii looga baahnaa wasaaradda ganacsiga iyo canshuur bixiye ah xor ayuu u yahay, si nadiif ayuu ku helayaa. ganacsiga xortaana waaba mandatekeena koowaad inaan promote garayno. shuruud kale kuma xirna. xafiisyada dowladdu shacabka ayay u adeegaan, shacabkuna wuu garanayaa meel kasta oo dani uga xiran tahay xafiiska uu aadi lahaa wuu yaqaanaa. maalan hay-adda duulista waxaa loo soo aadaa fasax dayuuradeed. in aad shakhsiyaad aad casuumtana waxaa ka fiican in aad media marsiiso si shacabka Soomaaliyeed dhan dal iyo dibad ay ku dhageystaan. marka inaan maximum number gaarno ayaa nagu kaliftay inaan idii wacno. marka shacabkii Soomaaliyeedna waxaan u caddaynaynaa fasax dayuurad ayay u soo aadi lahayn hay-adda duulista. dayuuradda aan isla hubinno inaanay waddankeena iyo shacabkeena riski ku noqon oo aanay waddankeena ku dhex dhicin, dhibic madow ayna nagu noqon. kadibna markaan isla hubinno ayadoo cad oo miiska saaran ayaad fasaxaada helaysaa. muhiim ma aha inaad xafiiskeena timaado, emailka hay-adda ayaad ku soo diri kartaa. qaybta flight operationka la yidhaah oo u xil saaran fasaxyada dayuuradaha ayuu ku soo dhacayaa. wixii lagaaga baahan yahay iyagaa email kugu soo weydiinaya, kadibna barmidkaadii oo nadiifa oo aad ku ganacsan karto, gacan saddexaad u baahnayn ayaad helaysaa. hay-adda duulistaa bixisa, shacabka Soomaaliyeed ganacsadaha u baahan. marka ganacsadihii iyo hay-adda duulista cid u dhexayn kartaa ma jirto. hay-adda duulista waxaa khuseeya horta dayuurad, ganacsiga in la allocate gareeyo iyo hay-ada kale ayaa iska leh. marka anigu waxaan idiin sheegayaa dayuurad xanibaad ay saaran tahay inaanay jirin, ganacsade xanibaad aan saarnay inaanay jirin, dhammaantood xor ay yihiin. qof kasta oo soo buuxiya badqabka dayuuradda fasaxiisa hore ayuu ka helayaa shuruud la-aan.